تصالحان حضر كيسا قف بلا آدنا نمبا يمي حويري Jarmalka tagay ninkaas Mareykan buu ka yimi Soomaali buu ahaa isagii reerkiisu way wada socdeen Jarmal buu ka yimi Mareykan buu horta ka soo baxay wuxuu ka quustay dhaqaatiirtii waxay dhaqaatiirtu u sheegayeen in ninkan loogu batalagelin inuu wax dhalo yani tusaalaan soo qaadanaynaa Jarmalku aaday ninkaasu afkiisa wuxuu iga sheegay in ay ku baxday $75,000 si haweentiisa xataa ilmo loogu abuuro qoladii Jarmalka markuu u tagay ay baadheen isagii haweentiisii waxay u sheegeen xataa haddii isaga wax laga qaado dheecaankii ama biyihii oo islaantiisa lagu beero inay adkaanayso inuu uur qaado ilaahay kama quusan subxaanahu wa tacaala ayay naxariista ilaahay baa dhalmadana haya يعني للمآنتنا هاي إلهي بقفك عقيم وقتل قلي إنه نقضه أما أنا يعني بلا عقيم وياه أو إلهي سبحانه وتعالى وبارك لي حسو صار لي نينكي وحوي مهرجيسة وحلصوا حديدي الهدى هابل ميديسين رنانتي وحنوش يجي إن برنامج كان أوتشرو ولا ترمل أوتري العقبنا يكب حضي markaan baarnay waxaanu ka helay computer baan saaray waxaanu ka helay qanjirka hoose in xanuun uu ka jiro oo uu qabo waxa la yiraahdo prostate infection waxaan la yaabnay ninkaas waxa uu leeyahay waa la igu soo baaray tusaalahan halkan $20 baa laga soo baaray xaqana wuxuu ku soo isticmaalay 75,000 ayaa ku soo baxday oo banaanka ay ka tahay yani maartay hotelkiisii iyo cuntadiisii baaritaan kaliya $20 baaritaanka markuu maray ilaahay wuxuuna garansiiyay inuu qofkan ku jiro oo computerka uu tilmaamay in uu jiro wax la yiraahdo prostate infection ama qanjirka hoose inuu jiran yahay kaasoo dili kara ugxantiisii baabi'in karana yani wixii sii wada haday ugxan noqoto haday tuuritaankii biyaha noqoto haday awoodii uu lahaa oo ay noqoto haday qadaf oo ay sameeynayo oo ay biyihii markiiba ay baxayaan ay noqoto intaba uu sameeyo waxaan weydiinay computerkii kaliya kumaanan ekaan markii computerka uu soo qoray inuu qabo prostate infection waxaan kaloo weydiinay calaamaadkii lagu garanayay prostate infection inuu leeyahay kuwiina waanu ka helay waxaan u bilownay isagii islaantiisii dawooyinkaasu waxaan u malaynayaa $750 inay ahayd waxay qaateen waxay dib ugu laabteen Mareykan iyo dawadoodii bay qaateen maalin maalmaha ka mid ah oo runtii sanad iyo wax laga joogo ayaa waxa ii yimid nin telefoon la ordaya nin wadaad buu ahaa ninka kale telefoon la ordaya annagoo dad fara badan u shaqeynayno aad u mashquulsan buu wuxuu codsaday dadkii wuxuu ka codsaday kaararka watay in telefoon u gudbiyo qofka meesha fadhiya telefoonkii buu noo keenay waxaan weydiinay telefoonku waxa uu yahay wuxuu yiri waa nin Mareykanka jooga oo dawo halkan ka qaatay ninkii wuxuu bishaaro nooga dhigay in dawadii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku daweeyay qanjirka wiilna uu u joogo Ilaahay wiil u dhaliyay subxaanahu wa tacaala runtii waa wax lagu farxo walaalka oo wixii ka maqnaa